السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya waa meel aad iyo aad u lama fahantay. Marka topiga rabo inaan ka hadlo, inta aan ka hadlin waxaan rabaa inaan horteeda maqashiyo. Waa gabar maxaa la yiraahdaa oo u shaqeynaysay qolo oo xuquuqda dumarka iyo carruurta u doodo. Haddana ayadu mushaarkeeda la. Bal dhageysta. shaqadaas walaahi haddaan shaqooyin badan aan soo qabtay anoo arday ah oo xaalado adag ku jiro oo wadanka shaqo la'aan baahsan ay ka jirto saasay tahay haddana shaqooyin badan oo waxaa jiro memory-gayga aan ka bixinin oo soo qabtay waxaa iigu yaab badneed oo soo qabtay shaqo hay'ad NGO oo u shaqeynaayo oo local NGO oo u shaqeynaayo hay'addii waxaa mushaar ahaan aniga ii qornaa lacag 700 iyo jajab ah ilaa 730 760 meelahaas ay qorneed oo shaqada aan qabanay teetalka quseysay saasay tahay ani waxa mushaar ahaan la ii siinaa $150 $150 waa ku qasbanaa inaan qaato arday ahaa jaamacada dhiganay waqtigaas aabahay dhintay oo anako badan oo wax dhiganeen oo arday jaamacad iskuul dugsi sare waxaas ah oo aaba naga dhintay marka waa ku qasbanaa inaan mushaarki intuu doono haleekaada inaan ku shaqeeyo waa ku qasbanaa kama hadli karin haddana sanado badan aan ka shaqeynaa weliba 2 sano 3 sano ka shaqeynaa anoo mushaarkeygana intaas yahay mushaarki intaas la egna la isiinaayo okay waxyaabaha ay qabanaysa ee cusla wax ma noogu sheegi kartaa walaa shaqo oo aad u culus oo waxaa ka mid ah mobilization waxa la dhahaa sameeynayna oo kaamamka soo wareegaynay barnaamijka waxaa ka shaqeynayna oo la child and women protection ka shaqeynayna marka shaqo badan oo riski ah waxa lagu dirayaa kaamama lagu dirayaa dad waxaa jooga oo kaamamka hogaamiyaasha kaamamka ah oo maaragtay ina ama lacag la siiyo rabo ama barnaamij kasto dadkaas masaakiinta ah u wadid barnaamij kasto dadkaas masaakiinta ah u wadid oo aan ficilaha ka hor istaagayo qaarkood waa xabadii qoryaal lagu soo qaadanaa ilaa ani soo afgaratid oo meesha wax ma ka qabanaysid mar waxaa xasuustaa kaxda ka kor aan tagay oo qaxooti cusub ah u tagnay oo nafteena riski ah u gelinay saasay tahay anaka xuquuqdeena mushaaraadka rasmiga xaq u leeyahay ma heleenin dadkaasna waa ugu talagalnay maadaama dadka wax u baranay ay yihiin ina maaragtaa nafteena waxaa la yaabaysa waxaa waaye mataqaanaa gabar ka shaqeynayso child and women protection waxay leedahay mushaarkeedii 760 camal lacag ay qaadanaysay marka waxaa la siinayaa $150 waxyaabaha alla yaabtid waaye tusaale child and women protection waxaa waaye dumarka iyo carruurta sida loo badbaadi lahay haddii noqoto in la dhibaateeyo lagu xadgudbo xoolahooda la dhaco naftooda la dulmiyo waxaas oo dhan ayay ka shaqeysaa haddana isla hay-addii waxaas ka shaqeynaysay ayaa waxay sameynaysaa maxaa la yiraahdaa waxay sameynaysaa dadka gabdhihii u shaqeynayay ayay xuquuqdooda iyo xaqooda cunayaan waxaa lagu leeyahay waddanka muhagaagu hay-adaha lacag bixiyaan waxa maxaa la yiraahdaa hay-adaha Soomaaliya jooga dadka inta ugu awaansan ayay wax u dhiibaan waxay ugu talagaleen marka dhibaatooyinka intaas la eg maalin kasta waxaa lacag Soomaaliya ku baxayo حتى waxaa la awoodi leeyahay in dadka masaakiinta ahaa xuquuqdooda la siiyo wax aad loola yaabo waay soo wada duub marka wadanka goormo hagaaga iyo muxuu hagaagi leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa in wadanka noo hagaajiyo qolooyinka hay-adaha u shaqeeyo oo noocaanan inuu ilaahay ummadda ka qabto gabadhan iyo gabdhaha la midka ahna waxaa u rajeynayaa inuu ilaahay xaqooda u soo daahiriyo assalaamu calaykum هذه بركة